qaar ka mid ah wafdiga ku heliyay madaxweynaha Soomaaliya safarkiisa ugu horeeyay dibadda tan iyo markii la doortay bishii la soo dhaafay ayaa la sheegay in Imaaraadka Carabta lagu karantiilay. xasan sheekh maxamuud iyo wafdiga uu hogaaminayay ayaa xadii ama baxay dalka Imaaraadka Carabta. booqashada xasan sheekh maxamuud ee Imaaraadka ayaa hore loo sheegay inay qaadan doonto muddo 2 maalin balse in ka badan ayuu haatan ka maqayaa wadanka, waxayna taasi hadal hayn badan ka dhalisay baraha bulshada Soomaalida. waxay dadku isweydiinayaan halka uu intaan madaxweynaha ku maqaya. ila weerarada kale oo ka gudbay madaxweynaha ayaa waxay xaqiijiyeen in qaar ka mid ah wafdiga la socday madaxweynaha in laga helay xanuunka coronavirus-ka. ila weeraradaas ayaa waxay xaqiijiyeen in madaxweynaha uu haatan caafimaad qabo, laakiin sabab la xiriir xarunka laga helay qaar ka mid ah wafdigiisa ay sababtay in dib loo dhigo kulamadii uu la lahaa hoggaanka Imaaraadka Carabta. heerka coronavirus-ka Imaaraadka ayaa kor ugu kacay 200 maalintii ilaa in ka badan 1400 oo tiro maalinle ah uu gaaro toddobaadkan. waa kii markii dhaqaatiirtu waxa ay sheegeen in dad yar oo ay baahdeen daaweynta isbitaalka, tiro yar oo bukaan ah oo burkiito ama qabow. waxay intaasi ku dareen in maanta gelinka dambe laga yaabo in kulamadaasi ay dhacaan kadib markii doorashadii 15 May ku guuleystay xasan sheekh maxamuud. waxaa la arkay safiirada dalalka isu tagay Imaaraadka Carabta iyo Qatar oo kulamo gaar ah la yeeshay madaxweynaha iyo gudoomiyaasha labada gole ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.